barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xanuun ama xaalad dadku inta badan ay aad uga cawdaan taas oo ay ka sameeyeen dhalinyarada, dadka dhexe, dadka waaweyn iyo dumarkuba. xaaladda maanta aynu ka hadli doono waa xaalad caafimaad, waa xaalad nafsiya, waa xaalad qofka la soo kordhi karta saacad kasta, mar kasta iyo minute kasta. waxaanu ka hadli doonaa xaaladan astaamaheeda, waxaanu ka hadli doonaa overview aynu ka qaadan doono. waxaan kaloo ka hadli doonaa waxyaabaha lagu daweyn karo marka laga eego xagga diinta. xanuunka aynu maanta ka hadli doonaa ama xaaladda aynu maanta ka hadli doonaa saaxiibadeeda la wadaagiyo si ay uga faa'iideystaan. waxa weeyaan waxa loo yaqaano qalaq, waxa loo yaqaano luqadda carabida, af ingiriisigana loo yaqaano anxiety, af soomaaligana loo yaqaano warwarka ama walaaca. qofku inuu markasta walaaco, inuu markasta warwaro, inuu markasta noqdo qofku qof aan deganayn oo xaalad ka fikiraya, meel ka fikiraya, fikirkiisu uu maqan yahay. ayaynu isla qaadan doonaa. nolosheena caadiga ah ee aynu noolnahay, ee dunyadan aynu ku noolnahay, waa nolol aan ka marnayn warwar, walaac, walbahaar, cilkaambi iyo muxuu hayay dhammaan deganaanshiyo la-aan aan ka marnayn. oo taa waxaaba dee muxuu hayay jooga shaydaankii oo mar walba inagu boorinaya wax kasta oo muxuu hayay nolosheena ka hor imaanaya. xanuunka loo yaqaano anxiety, qalaqa ama walaacu, inta badan waa xanuun normal ka ah bulshada dhexdeeda, kaas oo qofku uu la kulmi karo xaalad kasta oo uu nool yahay, kaas oo uu kala kulmi karo environment-iga uu ku nool yahay. laakiin waxaa la yidhaahdaa khubarada sayniska iyo caafimaadku waxay yidhaahdaan xanuunka qalaq la yidhaahdaa ama walaaco hadduu joogto noqdo, joogtadaas oo qofka kusoo noqnoqonaysa, hadduu noqdo midaan xad lahayn, hadduu noqdo mid muxuu hayay markasta uu qofku ka fikirayo, taasi xaaladiisa caafimaad bay wax ku yeelanaysa oo waa xanuun astaantii uu dhaafayaa. waxaana lagu cabiraa labada kelmadood la yidhaahda intense, excessive and persistent. saddexda kelmadood baa ayaa lagu cabiraa. hadduu joogto noqdo, hadduu wax qofka kusoo noqnoqonayo, hadduu noqdo mid muxuu hayay xoogan, hadduu noqdo waa xanuun weeyaan inuu qofku dhakhtar tago oo muxuu hayay sababta keenaysana laga daweeyo oo daawooyin loo qoro ayay noqonaysaa. xanuunkan warwarka ama qalaqu waxa uu dhibaato ku keeni karaa nolosha caadiga ah ee qofka. habsocodkii wanaagsanaa ee qofka noloshiisu socotay wax badan baa iska bedelaya. warwarkaasina wuxuu ku keenayaa in noloshiisa ay balance noqon weydo oo ay mid isu dheelitiran ay noqon weydo. qofka waxa ka lumaya controlkiisa nolosha ayaa ka lumaya. qofku wuxuu noqonayaa qof mar walba muxuu hayay aan deganayn, qof mar walba xaalad haysto, qof mar walba culays uu haysto ayuu noqonayaa qofkuna wuxuu khatar u gelayaa markaa in uu muxuu hayay xaalad caafimaad uu galo, inuu qol isku soo xidho, uu isdildilo, inuu dab isqabadsiiyo, inuu meel iska soo tuuro, inuu baabuur isu dhigo, inay mushkilad kale oo caafimaad oo muxuu hayay inuu korarsado, inuu sun cabo, waxaasoo miidhan baa keenaysa marka uu qalaqayo warwarku uu ka farabato, maskaxdiisuna ay xamili kari weydo. haddaba maxaa lagu gartaa astaamahan? maxaa lagu gartaa astaamaha wada garanaa? ta ugu horeysa waxa weeye inuu qofku xaalad ahaan iyo niyad ahaan uu markasta uu deganaan waayo oo maskaxdiisu ay meel ka fikirto, oo deganaanshihii iyo muxuu hayay habigii uu qofka uu muxuu hayay uu ka baxo. waxaa ka mid ah inuu qofku muxuu hayay uu wadnihiisu aad u garaaco markasta oo xaaladda warwarka uu ku jiro oo uu xasuusto waxaan uu ka warwarayo. heart rate, garaaca wadnihiisu aad buu muxuu hayay u kacayaa oo qofku uu dareemaya marka wadnaha ka odhanayo uu muxuu hayay uu dareemayaa. sidoo kale qofku dhidid fara badan ayuu yeelanayaa. qofku waxa uu yeelan karaa haddii qalaqaas ama warwarkaas walaacaas uu joogto ku noqdo inuu iska gariiro markuu xaaladii uu xasuusto uu ku jiray. sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa qof tired ah oo daalan oo markasta habaacsan oo mar hurdadu ay ku badan tahay oo daalku ku badan tahay oo wahsigu ay ku badan tahay oo muxuu hayay shaqooyinkii uu qabanayay oo dhan uu ka caajiso, dhammaan waxyaabihii uu qabanayay oo dhan uu ka caajiso. sidoo kale wuxuu noqonayaa qofku markuu xaaladda warwarku aad ugu badan tahay, qofku wuxuu yeelanayaa inuu aad u fikiro, fikirkiisu inuu bato oo muxuu hayay uu fikir inaba aan caadi ahayn uu qofku yeesho.
sidoo kale qofka controlkii baa ka lumaya qofku markuu warwar fara badan haysto controlkii baa ka lumaya hadalkiisa ma controli karo dhaqankiisa ma controli karo bulshadii sidii uu muxuu ahaay wala noolaa ma controli karayo dadka siduu la hadlayay ma controli karayo hurdadiisii ma controli karayo saamileel baa ku dhacaya hurdo badan baa haduu doono yeelanaya markaas qofka xaaladahaas ayaa la soo muxuu ahaay ayaa la soo diriyaya haddaba warwarka faraha badan leh dhowr xaaladood oo muxuu ahaay iska normal oo keena ayaynu isla eegi doonaa inuu qofku aad u warwaro ama aad u walaaco muxuu ahaay deganaanshihiisuna ay xumaadaan waxa keeni karta qofka dhalinyarada ah ama qofka hadii uu shaqo la'aan ku jiro inanka ama inanta qofka dhalinyarada ama dadkeenuba hadii ay shaqo la'aan haday dareemaan ama busaarada haday dareemaan waa ta ugu horeysa ee keenta warwarka iyo walaaca iyo muxuu ahaay deganaanshiyo la'aanta muxuu ahaay qofka keeni karta sidoo kale qofku haduu la nool yahay xaalad caafimaad darro oo muxuu ahaay xanuun uu jirkiisa ku jiro oo xanuun aanu ka bogsanayn ama xanuun aanu garanayn uu jirkiisa ku jiro ay nooc xanuunku doono ha ahaade ama ha lagu sheego ama ha lagu sheegin ama ha ogaado ama yaanu ogaan hadii xaalad caafimaad darro ay jirkiisa ku jirto isagana way keeni karaysaa sidoo kale qofku hadii uu gaajo fara badan iyo muxuu ahaay iyo busaarad iyo muxuu ahaay dhaqaale darro iyo muxuu ahaay jeebkiisa uu liito oo aanu lahayn jeeb wanaagsan oo de muxuu ahaay wax masaariif ay ugu jirto aanu haynin isagana warwarku ku badanaya wuxuu mar walba ka warwaraya sidii uu reerka mas'uulka ka yahay naftiisa cid uu mas'uulka ka yahay oo dhan sidii uu muxuu ahaay u kafaale qaadi lahaa laakiin uu gaari waayay ama uu u waayay hanti iyo dhaqaale ku filan warwarku inta badan waxa uu ku yimaadaa dadka lamaanaha ah ee jooga guriga ee qaba hadii uu gurigooda guri degan noqon waayo uu noqdo guri buuq iyo qaylo iyo sawaxanku uu muxuu ahaay xadka dhaafay haduu noqdo iyagana warwarku ku badanaya ninka waxa laga yaabaa inuu warwarkiisu bato deganaanshiyo la'aantiisu inay badato gabadhuna sidoo kale iyadana way keeni kartaa in deganaanshihu ka lumo oo qofku noloshii ficilada ku noolayd uu ku noolaan waayo mar walba warwaro xaaladan taagan ka warwaro sidoo kale furiinka isaguna mushkilad weeyaan mushkiladaasina waxa ku keentaa ragga iyo dumarka midkood ama labadaba marka uu meeshii furiin ama buuq family u yimaado iyadana muxuu ahaay warwarkaas uu ku imanayaa sidoo kale ardaydu haday imtixaan u fadhiisanayaan oo way jirto muxuu ahaay xaalad uu ardaygaasi imtixaan jaamacadeed ama imtixaan dugsiga ama imtixaan nooc doono uu fadhiisanayo taasina way keeni kartaa warwarka laakiin warwarkaas waxa noqon kara warwar de muddo kooban socdo hadhow toona markii imtixaankaas dhamaado qofku wuu ka bogsanayaa caadi iska noqonayaa daawada waxaan isla eegi doonaa waxyaabaha lagu daaweeyo marka laga yimaado inay caafimaad darro keentay oo qaybta dhaqaatiirtu ay daaweynayaan laakiinse inagu qaybta la talinta uun baynu eegnaa qofka waxa ugu horeeya ee xumad jabinta uu qaadanaya waxa weeyaan in uu qofku ilaahay isku xidho marka soo warwariyo walaac uu dareemo inuu ilaahay u noqdo inuu ilaahay u toobad keeno inuu salaada badiyo inuu dhikriga badiyo inuu ducada badiyo inuu quraan akhriska badiyo inuu badiyo muxuu ahaay ducooyinka qaar ay ka mid yihiin ee soo arooray ducooyinka farajka fura waxyaabo qofku adkaada muxuu ahaay u fudeeya waxa kamid ah laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin hadaad ducada aayada quraanka dad ku celcelisid waxa la shaka ah in warwarka iyo walaaca ku haystaa oo muxuu ahaay uu ka tagi doono sidoo kale waxa iyaguna uu inoo sheegay diinteena subay inoo sheegtay rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam haduu qofku ku celceliyo marka warwarka ku jiro xaaladaha warwarka ku jira iyo xaaladaha kaleba لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم دعاء هدي وقفك عليه يدنا ومد وكأه وحكس أول ولا يد بعطي عليس هيستا إن محوهاي ومحوهاي كفيد ميو sidoo kale qofku haduu suuratul faatiha haduu akhristo mar walba ku celiyo aayatul kursiga haduu akhristo suuratul baqara guud ahaan haduu akhristo dhammaan quraanka oo dhan haduu akhristo qofku noqdo qof quraanka ku xidhan isagana warwarku ka tagaya sidoo kale ducada inaad ilaahay gacmaha hoos dhigatid oo mushkiladan ku haysato uu ilaahay ka dul qaaday iyadana muxuu ahaay way ka tagaysaa warwarka iyo walaacaas guud ahaan warwarka iyo walaaca aynu sheegnay
waa dhibaato bulshadeena inta badan haysata.